imaamka waxaa soo gaaray suldaanun min asalaadiin almutaqadima nin ka mida salaadiintii hore oo waddanka wax ka maamuli jiray oo lagu magacaabo yusamaa awraca abuun magacan awrace sida taariikhda lagu hayo waxa weeye dadkii carabta ahaa ee bariga afrika soo degay iyo amxaaradii iyo tigreega dadkii ka islaamay dadka iska dhaleen baa magaca aad ula bixi jiray kelimatu abuun oo soomaalida kitaabkan turjuntaa badanaa ay abwaan ku sheegto waa baadil kelimatu abuun sheekha kitaabka qoray waa inoo sheegi jiro maaqa dadka meel alle laga dhaafiyey iyo maaqan taariikhda majar habaabinteeda inay wax ka dheefaan kelimatu abuun waa kelima ka soo jeeda luqadii qibdiga waxaana loo yaqaanaa sheekh diineed sheekhaas keeni doona waa u tegi doonaa daas way aan kitaabka ugu talagalay inaynu xaraf xaraf isu dul taagno si aan ciidamo been uga sheegin marka awraca abuun nin la oran jiray oo salaadiinta hore ka mid ah ayaa sheekha ciidamadiisii oo dhan ula yimi ninkan intii rabshooyinka ay socdeen oo axmed gure iyo suldaanku ay madaxa iskula jireen u fiirso sheekada uu galay kaana wuxuu ahaa biyo lama ikhtalafat albilaad waddanku markuu iskhilaafo dagaaladu ay ka jireen dakhala cala soomaal soomaaliyiintii mufsidiinta ahaa oo loo caal waayey buu ninkaani u galay wastalaxa huwa maca alimaam laakiin isagu muxuu sameeyey soomaalida ha dhex galo laakiin isagu wuxuu la heshiiyey imaamka kadibna waa acdaahu imaamku wuxuu siiyey bilaadan yaakulu minha carra dhan oo uu maamulo ayuu gacanta u geliyey kadib markuu maqlay waddankii oo dhan ee imaam axmed baa la wareegana ciidankiisii iyo dhulkiisii oo dhan imaamku gacanta u geliyey wadakhalad waxaa soo gashay cala alimaam imaamka iyaduna waxaa usoo gashay qabiilatun tusamaa geri qabiilo la yidhaahda geri ayaa iyaguna isa soo dhiibay waxa suldaankii iyo ciidankiisi kusoo biiray geriga u fiirsa marka qabaa'isha soomaalidu waa nidaamkii carabta badwiyiinta ah oo kale dadka reer baadiyaha waxaa lagu yaqaanaa sidoodaba markii fidna taagan tahay waa beer dhigaaleeyaan qolaba maalintii ay isleedahay meeshii ay isleedahay dan baa ku jirtaa unbay eegataa geriga dhibaata qabsatay waxaa qabsaday iyagii marixaankuna waa ishayeen sida shuqu keeni doono qolaha barmagdi la yidhaahdaana intay weerareen bay dhac iyo dil iyo dhibaato badan u geysteen marka waxay arkeen imaam axmed gure maadaama waddanku la wareegay ciidan badanna haysto imaamkii awraca abuunna uu asaga u galay iyaguna meesha waxay arkeen in dan badan ugu jirto qabiil ahaan kama ay diin jeclayn baan u jeedaa qabaa'il badan oo noocaas way noo imaan doontaa wuxuu yidhi wadakhalat cala alimaam qabiilatu tusamaa geri qabiiladaasna imaamkii buu usoo gashay wuxuu yidhi wa kaana baynahum wa bayna asxaabihim ayaga iyo niman ay isku cid yihiin oo la yidhaahdo qabiilatun ukhra qabiilo kale oo min almareexaan ka mid ah ayaa waxaa dhex yaallay buu yidhi wa amiiruhum mareexaanka horjoogahooduna waxaa la ohan jiray xaraabu khilaafun baa dhex yaallay labadaa qolona way sayeen waa qabiil ka mid a mareexaanka iyo gerigana shidaa dhex taallay arsala alimaam imaamku wuxuu diray markuu maqlay labadaa qolo geri iyo qolo mareexaana ka mid a baa ishaysa imaamku wuxuu diray ilaa xaraabu halkan waxaa la isku qabtaa nin xaraabo la yidhaha buu u diray xaraabahaasi wuxuu ahaa amiiru soomaal liyuslixa baynahum oo soomaalida oo dhan horjoogahooda ahaa si uu labadaa qabiil usoo heshiisiiyo meeshaan marka waxaa ku jira laba nin oo isku magaca ninna wuxuu hogaamiye u yahay amiiru yahay mareexaan ninna wuxuu hogaamiye u yahay soomaalida oo dhan meeshaan marka mareexaanku waa khaldaan waxay yidhaahdaan labada xaraabo waa isku mid waxna kama jiraan xaraabahan amiiru soomaali waa nin kale oo gaar ah oon qoladooda ahayn kan ayaga hogaamiyena waa u tegi doonaa sheekadiisa mar dambaynu gadaal buu ka keeni doonaa labadaa qolo marka dagaal baa dhex yaallay kadibna gerigu markay arkeen habeer magdiguna o dhan ka weeraray mareexaankana ay dhan iska hayaan imaam axmedna uu suldaankii diray oo uu guulaystay awraca abuunna uu u galay gerigu tala waxay qaateen ah inay imaam axmed ku biraan ciidankiisa qorshahaasay gaareen wuxuu yidhi fa baynamaa hum fi hada alxadiis iyagoo imaamku arrintaa ay ku jiraan oy leeyihiin geri iyo mareexaan aan kala gaaro oo hawshaa shirkeedii loo fadhiyo wuxuu yidhi fa baynamaa hum fi hada alxadiisi min ajli soomaal isagoo soomaalida arrinteedii daraaddeed ku jira id samica alimaamu axmed imaamu axmed wuxuu maqlay islamarkaaba bibidriiqin kabiir nin shiika oo hogaamiyayaasha nasaarada ka mid ah bidriiqa badanaa waxaa lagu sheegaa xadiiska fi saxiix albukhaari kitaab alwaxyi uu ku keeno badaariqada sida ibn xajar uu sharaxaya waxa weeye waa shukun min shuyuukh nasaara saasaa loo ictibaari jiray waagi hore ilaa iyo waa dhowna waa soo dhawaaday ilaa iyo intii gumaystayaasha reer yurubka adduunka ay qarribeen nasaaradu waa isticmaali jirtay waa wadaadiineed haddana hogaamiye ciidana adigu macnaha u qaado bibidriiqin kabiir nin weyn oo shiika hogaamiye ciidana oo min aljabaabirati weliba kuwa madaxa adag ah oo aad u kibray yusamaa lagu magacaabo deglagaan waxaa la yidhahdaa dejlajan buu shiiku qorayaa laakiin markii loo bedelo jiimku af carabi ma laha ja'da marka deglagaan baa la odhan jiray waana amxaar weliba ninkaasi wuxuu ahaa bisihri lmaliki boqorka markaa dalka haysta walaashiisu qabaa ninkaasaa imaamu axmed maqlay isagoo ku mashquulsan maxay mareexaankii iyo gerigii in la kala gaaro oo xaraabo u diray oo yidhi nimankaa kala gaaro soo heshiisiyey ayaa waxaa la maqlay hawl kaba culusba i qabaa'isha soomaalida oo ah ninkan ayaa soo duulay ومن تحته نكاس عيدا هوسي سواحة أيضا سلو كلا بدارقة كثيرة وذا دبدا أو نصارى أو هجاميال عيدنا وكوه سرنمام في سويس هذا وقد وصل نكاس وحسوق إلى أطراف بلاد من المسلمين نكاس وحسوق دع الكاميرا
تعلد ودن المسلمين أيو سوجاري وأخربها وابابي ونهب أموالهم حوله ذي بودعي وصبا حريمهم ناقه ذي نواقف شيء وصبا ولي وحق شيء أمير نين كمذا أمير كمذا من أمراء الإمام وقام ياشا إمام أحمد قري كمذا أمير كمذا هو يدي نواقف شيء أمير هو يدي اللي قفاشي يسمى الأمير أبا بكر القديم أبا بكر القديم هو فسير دونا وأبا وحل هذا أبو بكر عاتل هذا كلمة هو فسير دونا يدنا ماشي كتب أوريجينالي واللغة تقول كلا قاضي أبو بكر عاتو نين كل هذا هو يدي إن من كاسك حيصي دبعتها صار علي إمام أحمد محمد مشغول كي هاي نينك حرابها وأمير الصومالها أيوه يجري مريحان كلا جار إسلامه أول لما حد يدونا وين وتجد دونا هبر مقد يجري جالس كل المرحي Soomaaliduna majority-gooda markaa waxay u badnaayeen dad mufsidiina oo duruqda wadooyinka qaada oo musaafiriinta dhaca sidaas Soomaaliya maanta ahayd qolada ka taal runtii lacagta manajir wuxuu yiri wakaana cadadu khayl al-kafara gaalada soo duushay fardaha ay wataan tiradoodu waxay ahayd 600 600 faras ama ka badan wa askaruhum ciidankooduna jiraad al-muntashir sida ay xirnay oo kale waa fajahasa al-imam liqitalihi imaamku wuxuu sameeyaa markaa muslimiinta dhan baa laga soo galay hawshii Soomaalida waa ilaa uu noqon doona إمامك وحود ديار جريسي ويري وحود ديار جروبي لقتالهم دجال كودا ورتب عساكره عيدا كسبوا كلا رتتي والعدة والعدد تبر إيتال عيدا بوحي هلي كريه أيوك كلا رتتي وكان عدد خير المسلمين 200 فارس فردها مسلمين تأيوتين وحي هاي لباب غلا فرس فشنوا القارات دجال بيقارين وساروا وقت صلاة المغرب إلا صلاة المغرب للشوقية دقائق لم يزالوا كما أن يزول سائرين بالليل والنهار إن هبين يمالين سعون أيام حتى وصلوا إلى نهر كبير يسمى عقم إلى أي كجارين وبي وين والله مجعاب عقم وأنا يدين شيء أما كنت كتاب كوسا عرضته مشكلات بدن بعد لقلكم إلى هذا واحد عادي وتصحيحيا ولا لا هي نينكي أندون لأورنشري جغرافية بلاد الحبشة وحكا قري نينكا سأقول هو مجعيد ونردن ولا بدلي وبيجا ملوك يلا ما يغان وحلا بدينا يهينو إلى لها بورها وين يحرك كد اللاعة وبيجا كفر ما ينيهم الله بدنا وبيجا قاركون وتلمامي دونا إذا وبيجا شباب لا يشوبوا يهواسيو كتابكم كيردنا قد ماشي كفروداني ماشي كنا مالان وحيرين نكاسي إذا كوا دقاقي هبين يمالين بيسعودين إلى أي كجارين وبي وين وعقم لي هذا وقت سوال الشمس مركي دور كقلي أما قرح له إبرتهم من اليوم الآخر مالين تدم مركي لجاري أي هالكجارين فحدوا هناك هالكاسي دقين وأرسل الإمام جماعة من المسلمين إمام كوح صاري كوح سهن ومسلمين تكمدا يتجسسون له خبر الكفرة وأوصوا هلا أما أوصوا شاشوسا ورك قال لمن كان سود دولي عيدا كاس وروحي سكينوا يجي فما جاءه أحد بخبر عنهم رجي ودري أودمي وحور ميسا كما يكيني وبعد ذلك مركا كذب أيوه أرسل رسولا من أمرائه وحدر نين إرجيا أما الرسول نين إرجيا أو هجامياش كمدا أيوه إمام كدري وحلقوا مجعابش ليو نين كاس يسمى أمير حسين الجارتي وأنين كتقول طلاق بينسن حلقن كان أردن إمام أحمد قري ما أنت طلاق كل ما تونيك هو بحث وأنين كان وأنا نينك أنا لو إنه كوشنا لبادي نين ابن شهاب الجيساني ويري كتابك أنت أنا أروح توجي ميان أنت كلا لبلا أني ما كسر أمير حسين الجارتي أيود دري ومعه 7 من الخيل أو تضوى وطه تضوى فرس ما قدري نينك أسوأ دقاقي عيدا كوركي سكين بالي فوصل إلى قريب من عسل الكفرة وحو جاري ميل ودو عيدا كي قال أيو جاري فإذا هم عساكر كثيرة كدبنا وحو سو أركي إليهن عيدا تربضا فانسنا راجعا إلى إمام أحمد كدبنا وصول لابتي إمام أحمد وصول وركي بو كان وعلمه بخبرهم warkoodii buu sheegay wuxuu yiri niman la gali karo maaha ciidan tiran badan bay wataa kadibna waxa dhacday fasaar al-imaam wa askaru ila qariib min al-kafara imaamku ciidankii uu dhaqaajiyay gaaladii meel u dhow degeen hatta saara baynahu wa bayna al-kafarati jabalun mani'un ha'il ila ay ciidanka labada ciidan ay u dhaxeeyeen buur weyn oo kala teeday taxaddu hunaka imaam ahmed iyo ciidanka halkaas degeen فدلع الجبل الحائل بينهم ومعه 4 فرسان إمامك لفتك إسلاسان وبحي وإنه أركض دونا عادوين سوى حكم ذايد إذن كادون ميل دجيو طبنين أو حلبوك حسين تري سوى أخبار إيريادو أو نمو سوهلا كدب نوحي يري إمامك بورتي وكبحي وده حيسي عيدن كيسا عيدن كي قالها يسوى إلا سعوطة أفر فردولية أفر نين أو فرسان تمركي كتبتنا كلا لقع عبيريو رجع هليية أنا والله استعمالها رج فرد فلانة والله استعمال مركي لبضا معنا والله إجرا لمن هليية وهذا فرد وطائرك حيسي أحدهم أفرتين بوشيغيا وحكم ذهب وزير عدالة نك وزير عدالة اللي يراهدو يو أمير بردة ماشي كقرن أمير والأمير بردة وأمرك بردة يو أكتر ينو يشيدو عدالة وينو أركض دونا أبيه سانسوكري إمام أحمد قري إن أقوم بوها وأنك قصة طبعا إمام أحمد قري بقى والرجع عن تلوين كلا لا نعرفين بكم دي هاي
markii horena aabihiisu addoon u ahaan jiray waynoo imaan doonaa waan ragga hogaamiyayaasha waaweyn ah meeshuu ku dhiman doonana kitaabkaa sheegi doona wuxuu yidhi ragga uu kaxaystay 4 nin uu kaxaystay amiir cadale iyo amiir burda iyo amiir cali ninkii kale ma uu sheegin 4 nin buu noo sheegay ninkiis afraad waa ka tegey xataa asrafu cala alkafara ilaa ay qooraansadeen gaaladii afartii nin iyo imaam axmed bay wahum nuzuulun fii amaakinihim gaaladii oo meeshoodii degan fii mawdicin bay degan yihiin yusamaa diir halkaasaa ciidan gaaladu fadhiya waniiraanuhum tashtacil dadkooday iska shidanaya fansana alimaamu wa asxaabuhu raajiciina ilaa caskarihim kadibna imaamu axmed iyo raggii la socday afartaa oo sahanka ahaa ciidankoodii bay kusoo noqdeen wa baatuu waqad tahayaw lilqitaal habeenkii bay halkaa ku baryeen ayagoo weliba dagaal isu diyaariyey oo anytime in xabadi qabsan karto ku talagalay wa min alyawmi athani maalintii labaad haddii la gaaro waagu baryey saara alkafaratu yuriiduuna bilaadahum fatabicahu alimaam gaaladii waxay bilaabeen inay dhaqaaqaan oo waddankoodii xaggiisa ay u jeestaan imaamkuna wuu raacay fatabicahu alimaamu wa caskaruhu imaamkuna isagoo ciidankiisi wata ayuu dabagalay waqad ratabuu walabasuu khuyuulahum warakibuuha wa afraquu calayhim cuddatahum wa aalaatahum isagoo ciidankiisi u diyaarsan yahay oo fardahoodii u labisay oo sitaacyadii iyo maxaan ku idhahdaa rukuubkii la saari jiray iyo seefahoodii waxoodana u diyaarsan yihiin fardahoodiina fuulay wax allaale waxay tabar iyo ciidan hayeenna meeshii u diyaar garoobay fardihiina waxay ku qaateen wax allaale waxay aalaad iyo hub ay haysteen kamaa qaala shaaciru wadaadku gabayadaan idiin sheegaya dhowrkaa kitaabka kusoo arooray kii inoogu horreeyey waa kan sidii ninkii gabyi jiray oo carabka ah uu yidhi alaa yaa xabada sawta almunaadi qubayla subxi xaya cala aljihaadi liaqwaamin jaxaajixatin kiraami bianfusihim liirdaa'i aljawaadi idaa rakibuu xasibtahum usuuda wain nasaluu faawtaadu lbilaadi gabayga baxrikiisa hadda ma xasusto culud iyo qaafiya waa ilaa waane alaa yaa xabada sawta almunaadi alla wanaag badanaa ninka qaylinaya codkiisu qubayla subxi waa beriga hortiisa qaylinaya muxuu ku qaylinayaa xaya cala aljihaad dagaalka u kaalaya ninka lihii alla ninkaa codkiisa warsanaa buu yidhi liaqwaamin qolona u qaylinaya qoladaasoo jaxaajixatin rag ma dhaafaan ah jaxaajixadu waa jamcu jaxjaax jaxjaaxu waa luqadii hore ee carabta ahayd ee iska baaba'day hadda jaxaajixa markii lagu jamciyo waa jamcu taksiir jaxaajix haddii lagu jamciyana waa siqatu muntaha aljumuuc waxaa la yidhaahdaa asayid almusaaric ila almakaarim ninka caaqilka ah ee waxyaabaha gobonnimada ama halyeynimada aan cid uga hormarin baa la yidhaha jaxjaax jamceedi wakaa liaqwaamin qolooyin jaxaajixatin halyeeye ah kiraamin ee gobonnimo badan bianfusihim naftoodana ku gobonnimo badan liirdaa'i aljawaadi allaha jawaadka aynay raali geliyaanna naftooda u huraya idaa rakibuu markay fardaha fuulaan xasibtahum waxaad moodaysaa usuudan libaaxyo wain nasaluu hadday fardaha ka degaana fa awtaadu lbilaadi waxaad mooddaa tiirarka waddanka rukumada waddanku taagaya baad mooddaa gabaygaas waa gabay hore cidda tirisay ma aqaan wadaadkuna ma sheegin laakiin waa gabayadii kolley cusuurtii ummadda islaamka ahayd ee cisiga lahayd ee jihaadku uu qiimaha lahaa hadda haddii lasoo qaado waaba la baqayaaba indhaha ku cataanaya adaga daalac lagu raacay jihaadku ka sheegaya lagu leeyahay aduu gabaygaasuu shiiku dhex geliyey ciidankii gaaladu waa dhaqaaqeen imaamu axmedna wax allaale wuxuu ciidan haystay waa diyaar garaysay waana dabagalay qubayla suxi baa laga daba dhaqaaqay fa baynamaa hum kadalika saa'iruuna bacda alkafra ciidankii imaamku iyagoo sidaa u daba joogay ciidankii gaalada id iltafata bacdu alkafarati ilaa khalfihi ciidankii gaalada qaar ka mid a ayaa gadaal soo fiiriyey raca almuslimiin mise ciidan baaba daba guuraya raacda reeb baa la daba taagaya waraa'ahum gadaashooda ayaa ciidan daba socdaa fa akhbaruu asxaabahum raggoodii bay u sheegay waxay war waa layna daba socdaa raacda reeb bayna daba joogta faltafatuu biajmacihim dhammaan waa soo jeesteen gaaladii o dhan baa soo jeestay fara'u lmuslimiina waraa'ahum waxay arkeen gaaladii muslimiintii ooga daba socdaa wuxuu yidhi fansanuu raajiciin gaaladii o dhammi waa soo jeesteen fasafuu sufuufahum ciidankoodii bay leen u sameeyeen wacabacuu casaakirahum ciidankoodiina waa kala tacbiyadu waa tii aad taqaanaan oo cabayn wey waa kala cabeeyeen khadalahum allahu bishuqyin intaasaa ku darsaday waa habaaraya ilaahay garabkooda ha ka baxee dagaal bay usoo jeesteen maxay wax xununkoona daba joogay leeyihin wakadalika sidaasoo kale safa alimaamu casaakirahu maymanatan wa maysaratan wa qalban wa janaaxayn wuxuu leeyahay sidaasoo kale imaamku markuu arkay ciidankii inay soo jeesteen oo ay sufuuftoodii geliyeen isaguna ciidankiisi waa kala habaystay muxuu u habaystay qayb midigta ah iyo qayb bidixda ah iyo qayb wadnaha ah iyo laba dhinac waa nidaamkii hore ay u dagaalami jireen midig iyo bidix qalbi oo ciidanka xarunta dhexo oo centerka la yidhaahdo iyo laba garab oo labada midigta iyo galabta hore iyo dambaysa ah kadibna sheekhu wuxuu yidhi wasaxafa saxfaan labadii ciidan baa isku soo siqay wa aqbalat almuslimuun muslimiintiina gaaladii bay soo qaabileen kaannahum bunyaanun marsuus ayagoo aa moodid sarab la isku dhisay watawaqacat alfursaan halyeeyadii baa isku dhacay wa kaana awalu man xamala qofkii ugu horreeyey oo weerarka wax ku qaaday gaalada fooda geliyena farisu nin halyeeye buu ahaa oo min almuslimiina ka mid ah yusamaa waxaa la odhan jiray ninkaa farshaxam suldaan ibnu cali wuxuu ka mid ahaa buu yidhi min qabaa'ili yamli suldaan ibnu cali farshaxam suldaan ibnu cali min qabaa'ili yamlahaas waa inoo imaan doonaa inay
inay Soomaaliya ma kala aqaan meel loo raac lama yaqaan waxaan u maleynayay inay canfarta yihiin waa inoo imaan doontaa qabaa'isha yamle la yiraahdo waa ya iyo miim iyo laan bas sheekhu waana xarakeeyay oo wuxuu yiri yamli qabiilka la yiraahdo ayuu ninkaas ka soo jeeday nin haliyay oo aad u geesiya waa farshaxan baa leeyahay وكان وحو أها من الأبدال الشجعان كيسياش عن بقول نبض وقبيرين فكبر الله أكبر بكل بلابي وحمل على الكفر قال دينا وير بكو قال ففرق جمعهم كلهم كودي يسوتقودي بوكلا فرقيي وبدد شملهم من نوضو دينا واكل عيري وقتل منهم جماعة دور نواب الدليبا مركور دوشة كمري وأثر بدريقا وحسوق فاشي وذاد من البدارقة وردد نصارى كمدا يسمى وحل يرهب ينكا صبور ابن بدريق تخلي بدريق تخلي نينكي الأورنج بعد لا سفروه إذا أخذه وسوقاتي واقتلعه وكسو جدي من سرجه فرسي وصارا كوريه وكسو جدي وأوقفه وحنا سوهر استاجي بين يد الإمام أحمد بير كان وضع صدق صغر فأرسله الإمام إمام كن نينكا واقف تمدلين وحو أدري إلى بلاد العرب عرب الله أدري هلك أدون كدي عليه طاير كما حله وحمل نينكا سواني كوريو قال فودق لي نينكي كحجنا واكل وحمل أمير علي وينجي يدين شيء كتاب كسي شيء كسمالي بوشة كينيا سلابة ولا بس يكون عضي قال يا بلابي يا كل أنت يا الغفاشي يا الغفصي حقيل اللي استاجي حقيل اللي دقي حقيل الله سعود حقيل الله قصور نقضي سلابة كتجي مايو وحير وحمل أمير علي نينك أمير علي الأورنج يسوون أهلية وين كملها أيا يسوون وير فقراء على الكفرة وقتل منهم جماعة ركوا حبوا كلها وأسر بدريقا من البدارقة يسوون وذات كمذا وذات ذي وولاية قرب وسوق فاشي وأوقفه وحنا سوهر استاجي بين يد الإمام إمام أحمد وهر كان كا wax laga yeelay sheekhu ma sheegin ma la dilay ma madaxa laga jaray isna ma adoon baa loo diray lama yaqaan وبرز المسلمون للقتال مسلمينتي waxay u soo banaan bixin inay dagaalamaan kaanahum ayagoo aad madu usudun daariya libaaxiyo wax weeraraya camal وحملوا على الكفر قالدي bay weerar ku qaadeen وقوموا الأسنة warmahoodii bay taageen وأرخوا الأعنة maxaan ku yiraahdaa maxaa la oranay xarqi faraska lagu wadajay xakamayaashi bay raariciyeen واختلط الجيش بالجيش ciidankii way isdhex galay وصبرت الكفرة الآن قالدي حميد أما مدللة أهيد دجالك واو أتكيستين بقول الشيخ على قتال المسلمين أيه أتكيستين الكرام جبني ماذا بدنا ودار الحرب دجالك واو رجعي دور الرحى إذا بالك عتين كل شيء ورجع أكله أيه فود اللي يقول وحبا ما كلا هريوي واشتبكت الخيل بالخيل فرده بقى إسلح قلي والعسكر بالعسكر عيدا كله صار عيدا كله تعب ودح قلي ولا ترى يومئذ ما أنت نكي تشوجين مؤسن أركين إلا الرؤوس تقطعوا ما رح يلا ترى يوم ينحكر أمامكم وأرواح تنسعوا ضد نفل السيبيو هي وأوقف تتداير هي جعمه طول يو سيف الله تحتي وحكى هري مجد فود اللي يجري وضجت المسلمون ضجة عالية وضجت وحليها قيل وين أمر لا يسلق هذا عمل مسلمين ترى واحد يسلق هذين عد وين أو أي مرة قادين أو أي قيلنا يان بتهليل وتكبير لا إله إلا الله الله أكبر بليه والصلاة على البشير النذير نبينا وأقول لي اللهم صل على محمد بآخرية يوم قال كتير من التكبير تاي تهليل تاوضا فأجابهم سائر القبائل إذا كويح قبائل كتير أورنا أي أرنتاس كأدعي وسواء تجيبوا دجال كوساكعي ورجفت الأرض من تحتهم كل كنا هو سود كجريري وكان يومئذ شعار المسلمين مسلمين تمالنتا على مدى تنوحي أهيد يا هو استقوا إحنا عاصقلا يا هو نظام كدروق السوفية وكلا ويارو ملينا يا الله اللي سوق أبيوي فوقع الرعب أرجح أيها كنا في قلوب الكفرة قال هذا قلبي ذي أيها أرجح كنا المخذولين تجرب كذا لقبحي والإمام إمام أحمدنا ثابت الجنان من قلب جيش التاجي هوي لا يدن منه فارس من أسد وهذا مجر إلا كندله دول دقي ولا يدعن أحدا إلا أباته قف ورم كسيداية وكبح سينا مجره من ورم كتراب ودنع ولا توري فقال كاس مركو سلاوات كذي فانكشفت الكفرة قال ذي دنع وذي قرب كذا الله كبحي وافيد من بين يد المسلمين تورطوا ذي بكرة غاغين كان كانكشاف القنم من الأسد إذا أرجو وقددوا لباحة أو كلا يودين وقتل واحد لقدل من الكفرة قال ذي مالنتا ألوف كثيرة كبان كنت ربضا لا يحصيهم إلا الله إلههم بكرده يقاني تعالى كنا هاي وحاصل المسلمين تنا وحيك عنك كل جان الخيل فرضه والأموال حوله يو الأسلاف واتقنا وقلب كنك تقال ما يعرفونه وحاصل وافرتين وأثروا يومئذ مالنتا وحي سوق فاشين بير 400 أسير أفر بقول أو قف ولا سوق فاشي و84 أسيرا يسديتني أفر وأفر بقول يسديتني أفر قفنا عنك في سوريا ومن المواشي دون يدا والأبقال يبقلها شيء لا يحصى وحد بترين كريم بيسوق الصدين وأخذوا وحي سوقات ما كان في أيدي الكفرة من أموال المسلمين وحلال وحي قال وين المسلمين بيصورنا ولا كدعين ردوا قضي بابيين
وحلا وحي المسلمين تي أي صورنا أي كدعينا وسوعليا التي نهبوها قبل ذلك أي مركز ورا كسر دعينا وينجي صور شجنين مسلمين صورين عيدا كان المسلمين ورعد ريبها وردوا وحي عريان جميع أموال المسلمين إلى أهلها وحلا وحي ذلك المسلمين تلاقى سوق هذا يدخل هذا اللوجي ولم يقتل أحد من المسلمين إلا أنهم وقع فيهم بعض الجراحات الهينة فقال كوحي لي يقف مسلم يكون دما لكن وحسوا قال المسلمين وحيوا أعضوا فضفضوا وسلموا منها وأنا كبد بعد بنقودي واكعين فاستدعى الإمام بالأسارة وحلا وحي لسوق فاشل إمام كل هركان أو فأوقفوهم بين يديه فرس سالسوا يستاجي فالناس منهم يلقى يليا صدح ذي قيود إن ما دح لقى جرو إن الدول لقى دقوا ين في دي لقى قاطو فالناس منهم قار كم يدوي أرسل بهم إمام كو أدري إلى زبيد قال الزبيد ونين كان كتاب قرئ وكيمي ومركز السلطان هيستي ومركز المسلمين تو ودام ما كلا لها حدودنا ما جيران وحتى قال سميت هذا وجه دانو بلايا وقبطان زبيد بالله دري للأمير سليمان نين كل أورنج اللي هيستي المتولي بها ومركز عنده كهي فاستعبدهم وأدون صدي فاستعبدهم الأمير بزبيد أمير كي سبيل شو يعني ما كان أدون كذي تقارب حق الله دري والناس منهم قتلهم قارنا وسيدا يوكل عناد يو شرب بدين قارنا مدحوا كقرشيق والناس منهم ماتوا قارنا وابيس كدين تنبا فلله در هؤلاء المسلمين إمام كبا شيخ با مركا أمانية مسلمين وحليه إلهي هبر واقعي فلله در وكلمة عربية هو عربت waxay u isticmaashaa markii la rabo ninka in la yiraahdo alla ninkaas meel buu ka dhashay ayay waxay yiraahdaan falillahi daru hada rajul marka wuxuu leeyahay ilaahay baa iskala caanihi ay ku soo barbaareen muslimiinta iyo imaamkoodu yani si ay dad fiican u yihiin qad jaahadu way dagaalameen fillahi ilaahay daraadiisa u dagaalamayeen xaq jihaadihi u dagaalankiisa sidii ay mudnayd wasbaru wasabatu liliqaa'i alcadow way adkaysteen waana u sugnaadeen cadowga ka hortagiisa wabadalu waxay ku bixiyeen juhdahum intii dadaalkooda fi mardaati illaahi subxaanahu watacaala ilaahay inay raali geliyaan oo jihaadkii uu amray ay fuliyaan wamaa qasaruu kamana ay gaabsan halgankaa buu yidhi xataa saxsaxu lkafarata xataa saxsaxu lkufra can sariirihi ilaa ay gaalnimada sariirtii ka dejiyeen wa aqmaduuhu fii xafiirihi booraantiisana ay gal uga dhigeen iqmaadka waxaa loo isticmaalaa seefta marka galka la gelinayo xafiirkuna waa booraanta marka wuxuu leeyahay booraan bay gal uga dhigeen ilaa ay yani ay meel kaga soo hareen buu ka wadaa وعلى الإسلام كنا إلى أكر نقضي هوشا كواي جابسن وظهر وكم نقضي ودل الكفر قال لماذا يدلوا ذي وتقهقر وقدال نقضي تقهقر روح لي قف شجع مركوس الله أيا لي تقهقر لا ترى حقيقة ويبير عن الله تعالى إلهي كرها يقول إنه لي في المسلمين المجاهدين تذكر المسلمين هل جمع طريقة لعلاء كلمة الرحمن كهل جمع إنه إلهي كيري في محكم كتابه العزيز كتاب كيس الصغان عزيز كشرفت بدن إنه كيري آية وحسوقات في سورة آل عمران لما يدور سوق بجتمد بقراء يمد آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله أنت أسكسوقاتي هم لاينينا تذكر اللي قول لي وضلع على إنا يدنتين هموديننا بل إسكدا إنا يدنتين أحياء ونوليهم يرزقون كل رزاق يوي عند ربهم مضاف محل هذا محل درف مكان بيالوريشي درف مكان فعل كده مبني المجهول كابو كتعلقيا وينوليهم يرزقون كل رزاق يوي عند ربهم فرحين ويكفر احتيهم بما آتاهم الله وحي مركا مجاهدين تي فضائش وضعيو كتب إسلام مركا آخر الإجابة يا مكان قاود مرتا وحير وعلموا شيخا هذا الكوتا وحالوا قالت رحمكم الله إلهي هيدين حريسته أن شهيدا منك لعلاء كلمة الرحمن كل انت يسيل إنه قاري إلى رب كريم قال لك قبأ ديق بدن إنه قاري وقادا ويسكن إنه دقي دون دارا قولي إنه دقي دونه لا يموت ساكنها ننك دقا أوسن دوانين ولا يهرم شبابها لأن يردون أن ينقبوبين كما قال سيدة إلهي وهو أصدق قائلين عد واحتر هذا عده وفق ورم بدن وهي إلهي سبحانه وتعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هابا ما يوح نوجد أما تعب سندا أنا كبح مايان إمامكم مركو دقالها كشيكي وحيري فانسان إمام أحمد وعسكره ومعهم قنائم جزيلة إمام أحمد يحيدن كستوي صور نغذين أيقو قنائم يحول دقاتين وحي قالك صبرتين والله هاديه هو دليل إلهي بانا هاديكي ساء أما دليل كساء عدة هاجسي وكتب بنايي هرك عسنا إلهي بأهد بليه إلى بلدة هرب وصنغل مؤيدا منصورا متوجا محبورا أسوأ عمد قرب كسا لو قرقاري أو سوق قوليستي أو مدحي ستاج وحرينيهاي واللي بان كفر أحسن هل كان مركب معجزة وكسفر منك حلقا كان وضع وحي عينو كان صومر انتجرع غير وكان عمر الإمام إمام كالدعري سوحوها يومئذ مالك 21 سنة قوبي 20 سنة وجرا ونكي وحي إنه دجال صومر شغل ليس بيني كبح صدي ما أنت مضى أنت اللي يسكت بردي قال هذا أنت اللي أين
dhibaatooyin inta lagu geysto ko ilaa tan sir way meesha nuqda ku jirta waxaad ogaataan taariikhda bashariya sida lagu yaqaano ummadaha waxa taariikhda dhigaa waa dhalinyaro haddeer ummadaha islaamka oo caalam islaami ka halgamaya magacyada rabtaan idinku bixiya 90% waa dhalinyaro maxaa loo yaqaanaa argagixiso balaayo jabaljaan wuxuu rama aadeen taariikhda islaamka oo dhan caalam islaami waxa bilaada furtay oo dhami 80% dhalinyaro ahaayeen maxamed ibn yusuf al-thaqafi ninka bilaadu sanad furtay ee xajaaj ibn yusuf al-thaqafi ilmaarta 19 jira maalinta furtay marka taariikhda ku noqda mus'ab ibn umayr intuu jiray markuu madiina imaanayo daaciga ahaa intee jiray asad ibn zurara intee jiray markuu madiina soo qabsaday raggaas oo dhan wada raadiya ninkii furtay afghanistan raadiya ninka la yiraahdo qusam ibn abbas markuu bilaadu tirmid ka dagaalamay intee jiray musa ibn nasir markuu bilaadu andalus qabsanay intee jiray waxaas oo dhan waxa way hadeedana qowa ku wareeraysa marka canugaani waa xiniyo gaduud iyo waa dhalinyaro iyo waa dafdafleey waxa kama jiraan waxa muhiim ah oo xaq ah qofku xaq ma wata ma aha taasii laakiin waa da'yar iyo waxa lagu macleeyo haba lagu macleeyo